maareeyaha hay'adda duulista iyo hawada ee gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ibrahim Mustafa Maroodi oo maanta si gaar ah ula hadlay telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV waxa uu ka hadlay oo uu soo dhaweeyay go'aankii wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guryeyntu ay ku diiwaan gelinayso dhulka danta guud dagaalankan iyo soo celinta hantida qaranka iyo tii uu hore talaabadii uu ka qaadan tagay maareeyuhu duulista hawada wixii naga maqnaa oo dhan ay ku socsheen airportkii Hargeysa iyo airportada kale oo dhan ba hadana qof security lacag security ga horba deemood waxaan leeyahay madaxweyne waan kugu hambalyeynaya ummadana sida aad u shaqeynaysid bay bulshaduna ku jeclaysanaysaa sidoo kale maareeyaha ayaa waxa uu si adag u eedeeyay hay'adda jidadka gobolada Awdal iyo Salal Asarda iyo shirkadda dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama la siiyay oo uu guud ahaantood ku eedeeyay in ay musuqmaasuq kula kaceen dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama laba hay'adood oo mid aan magaceeda baan garanayn iyo hay'adda Asarda waxaan leeyahay dadkii waxaad ahaydeen ummadan wax u qaban lahaa waxaad haysataan hantidii ummadda ay soo dirtay ee lagu iibiyay agabkan aad ku shaqeynaysaa agab leedihiin ma taasoo ay ahayd markii horeba in alaabta ay samroon soo ururiyeen in loo dhiibo niman aqoon-yahan ah oo injineer ah oo waxaan hagi kara oo projectiyo kala raadsan kara laakiin ma ahayn loo dhiibo niman kiish bariis iibinaya waa Asarda waxaan leeyahay boqolkii fooste ee daamirka ah degdeg socosho idinku ma lihina airport kaale boqol jeer ma qabo hadalay hays laga tirina degdeg socosho madaxweyne control waa shakhsi haysta NGO waxa loo soo dhiibay ama ummadda dhan u sheegaya laba lacagood mid feeskii kuwad buu ahaa waxa loogu talagalay berihii airportka xayndaabka lagu sameeyay la koow iyo muxuu ahaa ruwayga lagu hagaajin lahaa birahaasina waa biro dhintay wax allaali iyo wax ka qabtay ma jirto dadkii qaban lahaana waa kii u diiday isagoo awoodo kale isticmaalaya marka waxaa leeyahay feeskii labaadna uu soo qaaday mudana madaxweyne iyo maareeye ninkaasi Boorama imanaya gudoomiyaha gobolka oo hadlayaan u noqonaya noomu keenin waxyaalaha uu qaban doono iyo mas'uulka baan gobolka u joogay noomu keenin qoraalkii ka qornaa muxuu ka hadlayay intuu wuxuu qabanayo wax qabadkiisii wax walba noomu keenin wasaaradii wax monitoring ku doorsanaysay ma jirto waxaan leeyahay walaal ummadaada ma aha inaad khayntid haddaad wax qabanayn waxay haydaan in hawsha soo gal lahayd haddaanad waxba qabanayn lacagtii ummadda u celi ilaahay ka cabso ordadka waxaan leeyahay degdeg islaha noo soo gaaro waxa ka dhacay waddankan musuqmaasuq ballaaran awooddaada isticmaal iyo hay'adaha xuquuqul insaanka haddii ay labada hay'adood ee aan sheegay ee kontolle iyo Asarda degdeg alaabta ay wax uga qabanayaan in wax u soo celin waayeen waxaan ballan qaadayaa inaan waran soo jarayo oon hay'adaha sharciga tigsanayo waayo waxaan tiqran wax haystaan wax adeegii ma wax idinku adeegii ma umadaale anu markasta waxaan ka hadlaa dan gaar ah oo leeyahay kama hadlo waxaan jecelahay in qof kasta oo mas'uulihi oo meesha uu joogo noqdo dacad uuna ku fikirin ka faa'iideyso wa xaraam meesha adduunka laga tagayaa aakhirada dambaysa